madax kala duwan ayaa maanta soo gaartay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kuwaas oo ka qayb galaya shirka golaha amniga iyo siyaasadda midowga Afrika ee ka furmi doona magaalada Beledweyne sida warkan ku faahfaahinaya Aadan Cabdi Axmed wafdigan oo hogaaminayo gudoomiyaha guddiga ammaanka iyo siyaasadda ee midowga Afrika ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne soo dhaweynta wafdiga waxaa ka qayb galay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare qaybaha kala duwan ee bulshada ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed soo dhaweyn kadib wafdiga ayaa kulamo la qaatay saraakiisha sarsare ee ciidamada AMISOM iyo kuwa qalabka sida ee dawladda Soomaaliya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulanka kadib waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay Maxamed Idris oo ah gudoomiyaha guddiga ammaanka iyo siyaasadda ee midowga Afrika ahna safiirka dawladda Djibouti u qaabilsan Itoobiya inta markaan ka tago waxaan mahad u dirayaa ciidamada Djibouti xaggan degan oo maanta iyo kuwa Itoobiya oo si wanaagsan xagga noogu soo dhaweeyay shaqada ay ka qabanayaan aan ognahay inay wada shaqeeyaan dawladda in Hiiraan iyo AMISOM iyo federaalku waa wax wanaagsan in sida lagu sii wado oo madaxweynaha deer wuxuu naga lahaa anagu phase 2 baan galay si hadii dariiqada la isku furi lahaa golaha amniga Afrika uu dhageystay waxaan isku daynaa kaalinta ka maqan sidii loo xoojin lahaa madaxweyne yaan madaxweynaha galaynaa wuxuu lahaa ambassador Madeira waxaan qabanaynaa shir bisha sadonkeega ka hadlaya in CONOPS waxaan afka gaar lagu ilaaho nidaamka cusub ee hawlgalka dambe AMISOM markaasi waxaan rajaynaynaa inaan dhameystiri karno sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa uga mahad celiyay booqashada ay ku yimideen magaalada Beledweyne wafdigan ka socda midowga Afrika waan ka mahad celinaynaa booqashada ay noogu yimideen wafdiga safiirada oo ka socda golaha amniga iyo siyaasadda ee ururka midowga Afrika oo runtii u yimid inay u kuur galaan nala qiimeeyaan xudda naga warsadaan barnaamijka AMISOM ee wadanka Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeelle runtii wixii warbixina waan isdhaafsanay wixii dareenahan qaban waan u sheegnay wixii baahiya waana dhageysteen shirkaasuna wuxuu noogu soo dhamaaday guul iyo sharaf Francisco Madeira wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta dadka reer Beledweyne ay u sameeyeen Aadan Cabdi Axmed